I am MetaHuman. shirkadaha waaweyn ee dunida waxa ay si xooli ah loolan xoogan ugu jiraan dhisitaanka dunida metaverse. shirkado badan hadda waxa ay ku guda jiraan samaynta agabyada dunidaasi dadku ay ku isticmaali lahaayeen. waxa xaqiiqa haddii metaverse teknolojiyada oo dhan ay u gudubto laazim waxaa loo baahnaan doonaa waxyaabo badan oo lacag laga sameeyo. asal ahaan dunidani metaverse sanadyadii u dambeeyey oo dhan ayay socotay ka shaqaynteedii, balse shirkadda facebooka markii ay ku dhawaaqday in kambani meta ay u gudbi doonto waxaa si xooli ah u soo ifbaxay dadaalada shirkadaha qaarkood dunidani metaverse ay ka wadaan. hubaal waxaa ah qof walbo inaga mida ee nasiib u hela in internetkaasi uu isticmaalo avatar muuqaal oo isaga u gaar ah oo fotokoobigiisii in uu yeelan doono. ma jeclayn muuqaalka inaan inka dhex galo, laakiin halkiisa uu inkaga sii soconaya. laba eray baan idin leeyahay. adduunku sanadka ka dambeeya nolosha waa la sii horumarinayaa. ma aaminaysaa adaa lagu koobiyeynayaa, laba qofaa lagaa dhigayaa. matalan maantay ballanaad meel ku leedahay, shaqana waad leedahay. labadaadii midna ballantow aadaa midna shaqadow aadaa, waxaas aqligaada ma galayaan. haddaa sheekadaas waa sheeko jirta. walaalkeen muuqaaladan uu noo turjumay kulligood youtube-kay ku jiraan. anaa baaritaan ku sameeyey, waa wax jira. keliya hadda caqabadda hortaagan waxa weeye jinsiga. dadka see loo kala xakamaynayaa. qofkan koobigaahu waa iska socoto. adoo jooga ninkii la yidhaha muqdisho dhex jooga ayaad baariis niyeysanaysaa. baariisaad ba dhex taagantaaba. bal waxaas yaa xakamayn kara? adduunkiyaa marka waxay taagan yihiin war sheekadan xuduuda loo yeelo. okay, gabaraad waxaad ka shukaansataa Maraykan adoo Soomaaliya jooga. taleefanaad ka wada hadlaysaa, xabiib inaan ku imaadaan raba, dhac sariirtaad baa taagantaaba. adduunku marka waxyaalaha noocaas oo diidaya yaanan inka waalin. horta sheekada soo dhamaysto isku soo laabanayna. waxaana la oran doonaa MetaHuman. I am MetaHuman. waa bani aadam casri ah oo adiga kaa tarjumayo. haddii aad dhimato xitaa fotokoobigaadii ayaa asxaabtaadii la sii joogi doona. asxaabta aad internetka ku taqaanana wax tacsi la dhaho iyo wax murug la dhaha oo dhan midna lama ay kulmi doonaan. haddii aad la yaaban tahay tanina waxaa dhowaan lagu sameeyey hooyo South Koreana oo gabadheedii 2016 dhimatay. shirkad qaas ah ayaa waxa ay go'aan ku gaartay sanadkii la soo dhaafay in hooyadani ay ka farxiso. hadiyad cajiiba oo aanan la filanin ayay hooyadani u soo diyaariyeen. 8 bilood ayuu kambanigani ka shaqaynayay diyaarinta hadiyadani. kambanigani waxa uu ogaa maamadani in gabadheedii aad ay u jecleed, qalbigeeduna in weli uusan ka go'in. si lama filaana maalintii abaalmarinta markii la gaaray waxaa maamadii lagu casuumay istuudiyo. istuudiyihii markay imaaday maamadii waxaa loo xiray ookiyaal VR ah sida qof beer dhex socdo oo kale. muuqaal horay maamada iyo gabadha beer ay ku wada galeen, muuqaalkaasi oo kombiyuutar lagu sameeyey ayaa dib loogu muujiyey. hooyadii markay ookiyaalkani xiratay oo hindarteedii gabadheedii oo waxaa ka soo horbaxday ordaysa oo hadlaysa sida inay hab siinayso oo kale, qof nool ah oo kale ayay la noqotay. muuqaalkani markii meediyaha lala wadaagay qof walba oo daawaday ayaa la qiirooday. tanina waxa ay tusaale u noqotay ama loo dhigay qofkii dhintaa in si qiyaali ah loo soo noolayn karo, si qiyaali ahna in qofka aad ula sheekaysan karto. qisadanise kuma koobna hooyadani South Koreaanka oo keliya. maantaba ablikeeshano badan oo sidani muuqaalo loogu taqliidin kara ayaa jira. haddaba innaga oo ku socona muuqaalka hooyadani iyo gabadheedii waxaa isweydiin mudan dhowr su'aalood. talow hooyadani gabadheedii ma dareemaysaa in ay taabatay? sidoo kale gabadhani qiyaaliga ah ee kombiyuutarka lagu sameeyey ee xaqiiqadana laga dhigay sida qof bani aadam oo xaqiiqa ah oo kale miyay u hadli kartaa? labadani su'aalood jawaabtoodii waa haa, laakiin si faahfaahsan muuqaalkani dabayaaqadiisii ayaad ku arki doontaa. wax walbo inagu aan naqaano maanta teknolojiyada gebigeedii waa la bedeli doonaa. shirkadaha waaweynse maanta si aanan caadi ahayn si xooliyah iyo dunidani dhisitaankeedii uga shaqaynayaan.
dabcan wax walibana kuma ay koobnaan doonaan ookiyaalo la xirtay oo keliya waayo ookiyaalayaasha VR-ka keliya dunidani qiyaaliga ayuu qofku arkayaa un mooye dhaqdhaqaaq inuu ku sameeyo dunidaasi ama qof uu salaamo ama in qofka meel uu seexdo ama shay ficil la xiriira dunidaasi haddii uu ku sameeyo sida xaqiiqada ee la taaban karo ma uu dareemayo broblemku ugu weynna halkani ayuu ka taagan yahay muxtamalan adiga kaba soo qaad in aad doonayso saaxiibkaadii metaverse kugula jira in aad salaanto laakiin sida dhabta gacantaadii ma dareemayso saaxiibkaadii waayo saaxiibkaadii waa mid qiyaali oo metaverse ah adiguna waxaa la rabaa in lagu dareemsiyo dareenka xaqiiqada ee salaanta ama waxaad doonaysaa in aad dabaalato adiga oo qolkaadii ku dhex jiro ama adiga oo sariirtaadii saaran suurtagal ma aha in aad dareentid dareenka qaaska ah ee dabaasha haddaba qodobkani waa qodobka aas-aas ku ah muuqaalkani maanta waxaa imaan doona qalabyo ama dhar u qaas ah sida golofiska oo dunidani loo isticmaalo milkiilaha shirkadda facebooka qalabyadani u qaaska ah dunidani metaverse iyada oo tijaabo ah golofis ayuu soo bandhigay golofiskani ama dharka dunidani metaverse loo xirto qofka waxa ay ka caawinayaan dareenka saxda ah ee dunidaasi in qofka uu dareemo yacni waxaad ku fakartaa casriga singularity-ga oo kale internetka ashyaada makiinadaha iyo dadkaba heer aanan la kala garan karin in ay mid yihiin oo kale ayay u shaqayn doonaan saaxiibkaadii maraykanka jooga ayaa muqdisho laga yaabaa dunidani metaverse inuu u soo dalxiis tago aqoon-yahanada qaarkood waxa ay hadda ku doodayaan akademisyahanadu su'aalo ah qof saxaraha liibii ka shaqaynaya haddii internetkani uu helo Las Vegasna dabaal uu aado halkaa sidee ayuu shaqadiisii uu ku soo haleeli karaa dadkuse sidee ayaa xilligaa loo maamuli doonaa qanaacaduse dadku ma ku yaraan doontaa kuwani waa qaar ka mida su'aalo aad u adag oo waqti xaadirkani aanan laga jawaabi karin waayo qofka internetkani marka uu gudagalo adduunka oo dhan meel walba ee uu doono ayuu tegi karaa dabcan meel walbo internet uu gaaro haddaba qof walboo inaga mida muuqaal isaga oo kale oo fotokoobigiisii metahuman ayuu ku qasban yahay inuu samaysto metahuman marka lagu leeyahay waxaad ku fakartaa karakterada sida filimaanta qiyaaliga ah oo kale filimaantani gaar ahaan kuwa istuudiyaha kombyuutarka lagu dhex sameeyo dadka waaweyn xayawaanada ama waxyaabahani qiyaaliga ah ee filimaanta kombyuutarka lagu sameeyo hadba waxaa loo nashqadeeyaa si waafaqsan filimka laakiin metahuman waa uu ka duwanaan doonaa filimaantani ma noqon doono sida avatar meel iska yaala bani aadam adiga kula socda oo dhaqdhaqaaqa ayuu noqon doonaa yacni adiga oo xaqiiqo oo hebela waxaa sidoo kale la abuuri doonaa mid kale oo feeg ah oo adiga aanan kaa duwanayn sida mataanahaadii I am metahuman. You create the narrative. I am metahuman. shirkadaha ugu dhaqdhaqaaqa badan arrintani hadda waa shirkadda Unreal Engine. Initial spark for the metahuman idea was just the fascination with digital characters in CG. To us, digital humans are something magical even, and infinitely complicated. moodeelo cusub oo bani aadam aanan jirin lagu samayn karo ayay shirkadani soo bandhigtay waagii hore waxyaabahani ama filimaanta noocani oo kale ah dadka qiyaaliga sanado badan ayay ku qaadan jirtay samayntoodii sida qof walbuu ogyahay filimaantani iyo kuwa kartoonada ahba waa kuwa ugu dhibka badan in la soo saaro inkastoo hadda wax badan isbedeleen laakiin xooliga dunidani metaverse waxa ay sii fududaysay in qofka uu samaysan karo nooca ama karakterka uu rabo ilaa heer qofka fotokoobigiisii uu ka samaysto suniyaasha faruuraha wejiga timaha meel walbo si xasaasi ah iyada oo loo xisaabi ayuu qofka maktabadani uu ka dhex samaysan karaa karakteradani kombyuutarka kaaga muuqda ee bani aadamka u eg sida xaqiiqada waa dad aanan jirin
si kastoo dadka badankooda ay ugu maleeyaan sawirro dad xaqiiq ah inay yihiin waa suurado feeg ah oo kombiyuutar lagu sameeyey waxyaabaha noocani oo kale ahna inta badan internetka madow iyo falalka dembiyada ayaa loo adeegsadaa si aanay dembibaarayaasha qofka u soo qabanin muuqaal been ah oo aanan jirin ayuu qofka sidani kombiyuutar ugu sameeyaa kadibna qofka hadal caadi ah oo isla kombiyuutarka ayuu saaraa nasiib daro muuqaalka halkani ka hadlayo dadka badankoodii marka ay arkaan dembiilaha waxa ay moodaan qofka shaashada ka muuqda laakiin adduunka oo dhan haddii laga raadiyo qof noocaasi oo kale ahba ma jiro. Hello, I'm Siren, and I'm a digital human. si kastoo waxyaabahani samayntoodii aad ay u dhib badnaayeen hadda waa la fududeeyey karakteradani cusub ee metahumanka hadda waxa ay u baahan yihiin oo keliya internet iyaga ayaaba diyaar u ah in ay noqdaan adiga fotokoobigaadii laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa faruurahaadii in isku qabashadaadii wax ay kaaga duwanaan doonaan haba yaraatee ma jirto laga yaabee in ay kugu adkaato baraticaal ahaan waxyaabaha aan kuu soo sheegay in maskaxdaadii aad ku suuraysato 2 sano maanta ka hor Doug Hubble nin loo yaqaano oo hadda shirkadda Facebook ka shaqeeya ayaa waxa uu ku soo bandhigay arrin la yaab leh oo la xiriirta bani aadamka digitalka ah inkastoo tiknoolajiyadu sidii loo baahnaa weli aysan u horumarin waxa uu xirtay qalab sida kuu muuqata kadibna ilays qaas ah oo loogu talagalay ayuu qaabkani wajigiisu ugu xirtay kadibna isaga oo sidani ah oo meel taagan oo dadka khudbad u soo jeedinayo ayuu dhowr bani aadam oo kala duwan u iska dhigay sida asalka ee kuu muuqata Doug Hubble waxa uu taagan yahay masraxa isla fotokoobigiisii oo feega balse midab kale loo yeelayna shaashada kale ayuu ka muuqdaa habka hadalka dhaqdhaqaaqa faruuraha indhaha waxba iskagama ay duwano haddii uu rabana qof kale ama karakter taqliidi oo been ah ayuu ka dhigan karaa isku dhar ma ay wataan haddana waa dad la moodo sida carabkiisii in ay la socdaan oo kale qaabka dhaqdhaqaaqiisii haddii muuqaalkani feega lagu soo duubo dadka sid ay u badan yihiin ma ay kala aqoonsan karaan midka xaqiiqada iyo midka fotokoobiga ah waayo hal qof ayaa awooda in dhowr bani aadam oo kala duwan uu iska dhigo isaga oo qolkiisii ku jiro ayaa waxa uu taqliidin karaa sida in konferensi ama meel xaflad ka jirta in khudbad uu ka soo jeedinayo haddaba muuqaalkani waxa uu ahaa 2 sano ka hor maanta se marxalad ka horumarsan tani ayaa loo gudbay muhiim ma aha in qofka wejigiisii nalal ama qalab inuu ku shido sida shirkadani Unreal Engine-ka oo kale moodeelo bani aadam oo nidaamkani loo sameeyay ayuu qof walba mustaqbalka u yeelan doonaa muuqaaladani sida wejigaadii xaqiiqada ah jirkaadii sida uu yahay isaga oo waxba aanan ka duwanayn ayaad kombiyuutarka ku samaysan kartaa muhiim xitaa ma aha xirfad iyo aqoon dheer inaad u lahaato sidani dadku marka ay lamaanahoodii kombiyuutarka ee fotokoobiga noqon lahaa marka ay ku samaystaan dunidani qiyaaliga ee metaverse isdhexgalkoodii aad ayuu u sahlanaan doonaa karakteradani xaqiiqada aanan ku dhisnayn ee metahumanka xitaa waxaa loo isticmaali karaa nidaam kale waxaa la dhahaa haddii aad badan leedahay balse suuqa ama meel aanan munaasab ahayn xilliga aad ku sugan tahay ballantaasi zoomka ayaad kaga qaybgeli kartaa adiga maadaama meel buuq badan aad joogto ama meel munaasab aanan ahayn saaxiibkaadii fotokoobiga ee metahuman ayaa shirkaasi kaaga qaybgeli doona kow waa inaad metahuman aad kicisaa dabcan kicintu ma aha sida qof hurdo laga toosinayo oo kale waa inaad program ahaan u shidaa kadibna adiga oo suuqaadii iska jooga ama xitaa adiga oo suuli istaga dhex jiro ayaa shir weyn oo madaxay isugu imaadeen ayaad ka qaybgeli kartaa muuqaalkaadii xaqiiqada yacni adiga oo qolkaadii isaga jiro ama meel buuq badan ku dhex sugan saaxiibkaadii metahuman ayaa muuqaalkaadii dhabtaa u soo gudbinaysaa isaguna shakligiisii toosnaa dhankiisii quruxda badnaa ayuu khudbaddaas uga qaybgeli doonaa sida Doug Hubble uu sameeyay oo kale waxaa loo malayn doonaa in adiga aad khudbaynayso asal ahaan adiga ayaa khudbaynayo laakiin dadku adiga kuma ay arkayaan saaxiibkaadii fotokoobiga ee aanan laga garan karin ee metahuman ayay dadku arkayaan
tanna tusaalooyin badan ayaaba maanta xitaa bani aadamka dijitaalka laga sameeyey. xaqiiqdii adduunka si xool ah oo aanan la dareemsanayn ayuu isku bedelayaa. adiga oo keliya ayaa noqon kara 10 qofood. luuqado qalaad oo kala duwan ayaad hal mar ku wada hadli kartaa. adiga oo tiknoolajiyadani ka faa'iideysanaya waxaad ku fikirtaa adiga oo aniga ila hadlayo isla xaaladda aad ila hadlayso dalxiis ayaad adduun kale u joogtaa. isla xaaladaasina waxaa laga yaabaa xaflad waddan kale ka dhacaysa inaad ku casuuman tahay. qof walba halka aad u dirto ama saaxiibadaadii matahyuumanka ee fotokoobigaadii ah dunida daafaheedii halka ay aadaan gadaal dambe ayaad ka ogaan doontaa wixii aad soo samayseen. muxtamalan doodaha mustaqbalka imaan doona qaar ka mid ah waxa ay noqon doonaan qof bani aadam ee xaqiiqo ah haddii dhowr bani aadam oo kala duwan uu iska dhigo adduunka daafihiisuna qaladaad uu ka sameeyo ma qofka fotokoobiga ayaa la ciqaabi doonaa ama qofka xaqiiqada ee bani aadamka ayaa la ciqaabi doonaa. inkastoo waqti xaadirkani doodaha aysan jirin waa mustaqbalka doodaha dhanka cadaaladda iyo maxkamadaha aad looga doogi doono. daa'ima sida saxda adiga ayaa xaqiiqo noqonaya laakiin saaxiibadaadii matahyuumanka sida aad rabto ayaa dunida qiyaaliga ugu dhex adeegsan kartaa. bani aadamku waxa uu ku sii socdaa marxalad ay adkaan doonto dadka xilligaa dhashta in ay kala saari waayaan maxaa xaqiiqa ah maxaase been ah. jiil gebi ahaanba inaga duwan ayaa mustaqbalka imaan doona. tiknoolajiyaduna qaabkani ayaa loo horumarinayaa. dabcan sida wax walbay u leeyihiin qayb faa'iido iyo qayb khasaare ah tiknoolajiyadanina qaybo faa'iido waa ay leedahay. haddaba adiga dunidani metaverse maxaad kala socotaa maxaadse u sii diyaarsatay ama waxaad ka mid noqon doontaa dadka gebi ahaanba tiknoolajiyadani aanan isticmaali doonin inkastoo dad noocaasiba aysan jiri doonin. qur'aanka kariimka waxa uu alle uu ku leeyahay dadka xisaabtoodii ayaa soo dhowaatay iyaguna mashquul iyo hilmaam ayay ku dhex jiraan. aayad weliba oo xagga alle uga timaada dadka ee loo sheego waxa ay dhagaystaan ama ay maqlaan iyaga oo baashaalka isaga sii dhex jira. ugu dambayn muuqaalkani isboonsoorkiisu waxaa leh maktabadda elektarooniga ee Sam Felix. maktabadani sida dad badan cabasho ahaanay u soo gudbiyeen waa in aysan haysan kaarka bangiga. maktabaduse kolkani aad ayay ugu fududaysay asxaabta ku dhiban kaarka bangiga. nambaradani shaashadda kaaga muuqda haddii aad isticmaasho EVC ama zaad midkood ayaa ku diraysaa $3 ee khidmadda maktabadda. kadibna si toos ah haddii magacaadii EVC-ga ku qoran maktabadda aad iska diiwaan geliso sida linkiyada description-ka hoose yaala maamulka sidaan hore baan kugu sheegay sanadba sanadka ka dambeeya bilaadanku naftiisa iyo noloshiisa wuu hormarinayaa. maantay qofkii joogay 1900 ebertii xilligan diyaaradda la aqoon oo gaariga la aqoon oo taleefanka la aqoon oo qoriga la aqoon qofkii joogay nolosha maanta aan ku noolnahay ikhyaali bay la tahay rumaysan maayo ma aaminayo anigoo Jarmal jooga ayaa adigoo jooga Soomaaliya ama Mareykan jooga ayaa daawanaya live markaan soo galo ma aamini lahayn qofkaas ma aamini lahayn wuxuu dhihi lahaa aqliyan qofkaas oo maraya waa markaan yaraa waxaan dhihi jiray idaacadda BBC-da dhageysan jirnay BBC-da markii la dhageysanayo raadiyaha ayaa ku wareegi jiray maanta hore dhihi jiray ninka hadlaya horta ku jira macnaha dadkanagii hore saas oo kale ahaan lahaayeen qof aamini lahay ma jiro qof live ah oo meel ku jira live u arkaysaa wuxuu samaynayo shaaxaasaan cabayo aad daawanaysaa hadda fiiri hadda ga joogtaa Mareykan joogtaa Soomaaliya joogtaa hadda waa waqti xaadirkan waa ka bashaa waa isla daqiiqad isku waqti wadi jeeda macnaha dadkii marka naga horeeyay anaga qarniyadii naga horeeyay jiray nolosha noocaan oo kala ma aamini lahayn. okay qof ma aamini lahayn tow marka la yiraahdo Yurub ka qadeeyo ayuu xamar ka cashaynaya qofna ma aamini lahayn hagee u maraya u dhila diyaarad xilliga la qoran ka hadlaya anigu oon gaariba la aqoon marka walaalkayga Soomaaliyeedow hala yaabin tan waa wax dhici kara waa wax macquula waay Google intaad u wacdo waxa leedahay Google hebel aan u baahanahay dhac Siri hebel waa inay hebel dhac waa lagu soo saaraya noloshu marka halkaas ay maree
aduu markaa la yaabin google ma qofka ku dhex jira qofka ka hadlaya go jooga ha la yaabin noloshu taaka ayay isku dhisaysaa in lagu koobiyeeyo waa wax dhici kara waa macquul waa sheekaan aan qaatay waa sheeko innabaan caadi ahayn oo gadatay haddii aad aamini waysid youtube-ka galoo soo baraaway sheekadan anugu soo xaqiijiyay laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa cimriga noocaana inaan gaaro nolosha noocaana waa rabaaba ciidan xumo ay dishay ciidan xumo inaan maalin kasta muuqaal gaarin kaga soo dhex duubo ciidan xumo ay geynaysa sababtoo habeenkii waa shaqeeyaa shaqada markaan ka soo baxana waa seexdaa markaan seexdo intaan seexdo akhbaaraadka la ii soo diray ayaan idhaa asxaabtaada u tabi shaqada markaan u sii socdon gaariga galo ayaan idiin soo tabiyaa balse aan idiin jecelahay Soomaaliya arka waxaan doonayaa intaas u ordayaa dadka Soomaaliyeed dad isku duuban inay noqdaan oo qabiilka iyo qashinka iyo qurunka ka weynaadaan oo dawlad cadaalad aan helno walaalo aad u tiro badan oo qalbi nadiif lahana igu xiran haddii dad xun aad ahaan lahaydeen wallahi intaan maana samaylayn laakiin aniga ma idin xiisaba in kama maqnaa karo wallahi oo billahi oo tallaahi aniga ma in ka maqnaa karinba inaan muuqaal idin soo duubo ayaan bajacalhaba ugu dambayntii haddaad sheekadan sheeka ka gadanta ay noqotay laag dhac ku sii fikradaada inta kaaga aadan qaybta hoos ku bandhiga nugula wadaag sheerta laftirkeedu waa noo muhiim walaalkeeyo waxaan cadaalad darro ka tirsanayaa oo maalin dhawadin ka codsaday reer warkalkaalo waa dhaga fududaydeen dad wadaniyaala oo qalbiganaga iyo quluubtanadu isku meel wada jeedaan ahayn TikTok qaybta kore linkiskiisu ku qoran yahay ilmaada riyaalo 10 kun gaarsiyo ku soo yaaca waxaynu doonaynaa live inaynu ka soo galno inaynu bulshada halkaas dhalinyarada u bateene aan dhalinyarada qaybtaan ka wacyi gelin qaybtaan ka wacyi gelino waxa jira maalin dhaweed nin baa soo wacay wuxuu yiri niyo game baa rabaa inaan ku ballansado qabiil iyo qaran baynu dheeraynaa marka waxaan idhaa anigu cayaar ma galo dad baa wata Soomaaliyeed oo qarannimada jecel oo qabiilka diidan horta walaalahayga qaaliga ah linkiskaas kor idin sheegi ma waa ceeb inaan horta markasta ku soo celceliyo iska taabo oo xitaa waa ku fududeeyay flow soo dheh aad iyo aad baad mahadsantiin Soomaalida ha waarto dhalinyaradannada ilaahay ka dhigo kuwii xaq ilaahay tuso awooday leeyihiin laakiin dhalinyaradu odayaasha waalaya aad iyo aad baad mahadsantiin Soomaaliya